haddii aad weligaa ku riyootay magaalo isku darsatay qurux dabiici ah, xeebo dahabi ah, buuro dhaadheer iyo nolol aan seexasho lahayn habeen iyo maalin. Daawadayaasha qiimaha badan, ku soo dhowaada muuqaalkeena maanta. Aan kaga hadli doona magaalada Rio de Janeiro, caasimadda dalka Brazil. Ladies and gentlemen, welcome to the dazzling city of Rio de Janeiro, the heart and soul of Brazil. Located on the southeastern coast of Brazil, Rio de Janeiro is famous for its stunning beaches, lush mountains, and vibrant city life that never sleeps. Founded in 1565 by the Portuguese, Rio has grown into one of the most iconic cities in the world. Rio waa magaalo dadka qalbiyada ka gasha markii ugu horeyso as aragtid. Markii aad diyaaradda ka degtid, waxaa kuu muuqda buuro waaweyn, dhirar cagaaran, iyo xeebo dhaadheer oo ay hirarka badda Atlantiga si tartiib tartiib ah u garaacayaan. Magaalada Rio de Janeiro waxaa lagu yaqaanaa farxad, ciyaaro iyo dad dhoola caddeyn badan oo martida si weyn u soo dhoweeya. Haddii aan gudaha u galno magaaladan, waxaa jira meelo loo dalxiis tago, waxaana ka mid ah taalada weyn ee lagu magacaabo Christ the Redeemer, taasoo ku taala buurta lagu magacaabo Corcovado. Taaladan waxaa la bilaabay dhismaheeda sanadka markuu ahaa 1922, waxaana si rasmi ah loo dhammaystiray lana furay sanadka markuu ahaa 1931. Taaladan waxay dherer ahaan ay tahay qiyaastii 30 mitir, halka salkeeduna yahay ku dhowaad 8 mitir. Taaladan waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu yaabka badan ee dunida lagu arko, waxayna u taagan tahay astaan ay Rio de Janeiro ku faanto. Magaaladan sidoo kale waxay leedahay buuro waaweyn oo xaggooda haddii aadid arkaysa quruxda magaalada oo dhan, sida xeebo dhaadheer, dhismooyin isku dhex yaacsan, iyo buuro waaweyn. Dadka booqda buurahaas waxay dareemaan sida inay dunida dusheeda taagan yihiin. Intaas kuma eko, haddii aad rabto inaad dareento quruxda dhabta ah ee caasimadda Rio de Janeiro, waa inaad booqataa xeebta caanka ah ee lagu magacaabo Copacabana Beach. Copacabana waa xeeb ay dadka dunida oo dhan u soo dalxiis tagaan, waana meel aad ku arkayso ciyaaro, socod, dalxiisayaal iyo dadka deegaanka u dhashtay oo xeebta kubadda cagta ku ciyaaraya. Waxaa kaloo jira markii habeenkii la gaaro, Copacabana waxay isku beddeshaa meel iftiin badan oo ay dadka ku raaxaystaan, oona leh hoteello waaweyn oo dalxiisayaasha ku habboon. Sidoo kale markii aad joogtid Rio de Janeiro, waxaa kaloo jira xeeb lagu magacaabo Ipanema Beach, taas oo ka caansan tiin hore u soo aragnay ee Copacabana Beach dhinaca bilicda iyo degenaanta. Ipanema waa meel ay ku badan yihiin dadka quruxda jecel, sawir qaadayaasha iyo dalxiisayaasha u soo tagay inay ku raaxaystaan. Qorrax dhaca Ipanema waa wax aan la qiyaasi karin, cirka oo casaan iyo dahabi isku roga, taasoo badda ka dhigta mid muuqaal ahaan soo jiidasho leh oona qurux badan.
haddii aan nahay dalxiisayaal Soomaali ah, intaan naguma filna waa inaan raadinaa meel ka sii sarreysa si aan u aragno magaalada caasimadda ah ee Rio de Janeiro dhammaanteed. Buurta lagu magacaabo Sugarloaf Mountain waa buur loo raaco cable car. Markii aad raacdo waxaad dareemaysaa cabsi iyo farxad isku jiro. Marka aad xagga ugu sarreeyo gaartid, waxaad arkaysaa magaalada oo dhan, badda iyo jasiiradaha ku dhow dhow magaalada. Tani waxayna fahansiisay sababta Rio de Janeiro loogu yeero magaalada mucjisada. Rio sidoo kale waa magaalo ay ka buuxaan taariikh iyo dhaqamo kala duwan. Mid ka mid ah meelaha ugu xiisaha badan waa garoonka lagu magacaabo Maracana Stadium, oo ah garoon kubadda cagta oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna caansan dunidan. Garoonkan waxaa ka dhacay ciyaaro waaweyn oo taariikhda galay, waxaana ka mid ah ciyaarahan finaalkii u dhexeeyay Uruguay iyo Brazil 1950, kaasoo Uruguay ay guusha ku raacday kana yaabiyay dadka Brazil. Sidoo kale finaalkii 2014 kaasoo u dhexeeyay Germany iyo Argentina, kaasoo guusha ay ku raacday Germany goolka u dhaliyay Mario Götze extra time-ka, iyo ciyaaro kale oon halkan ku soo koobi karin. Inta aan safarka soo gabagabaynin waa inaan soo booqanaa xaafadda buuraha ku taala ee isku raranta ah ee lagu magacaabo Favela, halkaas oo ay dad badan ku nool yihiin. Inkastoo ay jiraan dhibaatooyin amni, haddana favelas waxay leedahay dhaqamo fara badan, waxaana ka mid ah farshaxanno ay ku sawirtaan guryahooda, kaasoo soo jiito dalxiisayaasha. Kadib safarkii dheeraa aan soo qaadanay, halkaas waxaa ku soo idlaaday safarkii aan ku tagnay dalka Brazil, gaar ahaan magaalada caasimadda ah ee Rio de Janeiro. Fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan, subscribe noo saar una share garee asxaabtaada adoo mahadsan. Waa anigoo ah Cabdixakiim Elonko. Tan iyo muuqaalkeena xigay aan ku kulmi doona. في أمان الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.